hay-adda shaqaalaha dowladda iyo mu'asasatul karam ayaa xarunta hay-adda shaqaalaha ku qabatay muxaadarooyin socon doona 4 habeen waxaana furitaankeeda ka soo qayb galay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha badhasaabka gobolka Murudijeex wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo Sheekh Almis oo muxaadarada koobaad ka hadlayay cibaadada iyo faa'iidada ay u leedahay qofka islaamka ah halku dhiga muxaadarooyinkani oo ahaa qof waliba waa dirane waana la weydiin doonaa wixii loo diray gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Hayb oo ugu horeyn ka hadlay ayaa soo dhaweeyay culimada iyo marti sharafta kale sidoo kalena sheegay in loo baahan yahay in la nooleeyo quluubta waxaan ilaahay ka rajaynayaa insha Allah inaynu ka faa'iideysano culimadeena oo 4 habeen si isdaba jooga isu weydaaranaya habeenba qayb soo galaysa si ay waano iyo waciid ula wadaagaan dhalinyaradii aqoon-yahanka iyo bulshada Soomaaliland intii fursad u heshay Mukhtaar Nuur Maxamed madaxa xidhiidhka bulshada ee shirkadda soo ayaa isna ka waramay doorka ay shirkaddu ku leedahay qabsoomidda muxaadarooyinkan iyo inay maalgeliyeen iyo tabinta tooska oo ay siiyeen haddaan nahay shirkadaha MSG Group gaar ahaan soo iyo Som Cable oo qayb libaaxa ka qaatay qabsoomidda barnaamijkan iyo tabinta tooska ah runtii sharaf bay noo tahay maamuus inaanu garab taaganahay culimadeena dadkeena sharafta leh bulshada wax ku celinaya oo runtii marka wacyi gelintan oo kale waxyaabaha nolosheena tooska u taabanaya weeyaan wax laga yaabaa munaasabadaha kale inay meel u ka taabanayaan ama mabduuc gaar ah laakiin waxa adduunyadaada iyo aakhiradaada taabanaya uu kaaga duwan yahay waxa kale dhan waa waxa ku kaaftoomi karto wixii kale nolosha oo dhan ka koofragay runtii anaga kan kamid marka sharaftaas iyo maamuuskaas ay noo tahay waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ballan qaadaynaa inaanu culimada khayrka jecel daayarteena aqoon-yahankeena iyo cid kasta oo bulshada wax ku celinaysa inaanu garab taaganahay annagana waxay nooga dhigan tahay ka kamid ahaan in waxtarka bulshadu أو يهيل لف دبرتا هرمركا يسوع على الفيوبانت وذا شعنقاتك إسكرابايسيكا يو هيلك إسكو نقشة دبا ينوغا ديغان تهاي وحضينان وحوذا عنين وحوذا قبصنين إسكراب استاغين runtii waxbay noo qabsoomayaan badhasaabka gobolka Murudijeex Jaamac Xaaji Axmed ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in la joogteeyo kulamada caynkan oo kala ah si bulshada loo wacyigeliyo diintu waa naseexo adiinu naseexa waxay naseexa u tahay lillahi wa rasuulihi wa aimatul muslimiin waxa weeye muslimiintu inay nusu naseexayaan oo wanaag isu sheegaan ilaahay bayna faray subhanahu wa ta'ala waxa weeye nolosheena ku jirta inta badan waxaynu ku mashquulsanahay waxyaabo kale oo akhiradeena iyo adduunyadeena in badan aan dani ugu jirin Sheekh Abdullaahi Ibrahim Yuusuf agaasimaha waaxda awqaafta ee wasaaradda diinta iyo awqaafta oo wakiil ka ah wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa isaguna madashani ka hadlay dadweynaha u tiro badan ayaa ka soo qayb galay dhageysiga muxaadaradani uu jeedinayay Sheekh Almis Yaxya oo kaga hadlayay cibaadada